أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدس الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan halkan ka soo tabinayaa qiso yaab leh oo qof kasta oo mas-uul ah duruus fara badan uu ka heli karo. qisadaasi waxay ku saabsan tahay aayadda qur-aanka oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu leeyahay: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آيات سورة المامسة أمانة إنه إلهي أبندغي مخلوقات كواوين oo samada iyo dhulalka iyo buuraha, laakiin ay kari waayeen inay qaadaan. marka aayaddu waxay leedahay bini aadamka ayaa ku dhiirada inuu qaado. ammaano waxaa la yidhaahdaa nooc kastoo mas-uuliyad ah. haddaad nin tahay, xaaskaaga mas-uul ayaa ka tahay, kugu ammaano. aabbe iyo hooyo haddaad tihiin, carruurta waa idinku ammaano. madaxweyne haddaad tahay, shacabka ammaanuu kugu yahay. prime minister haddaad tahay, shacabka ammaanuu kugu yahay. imaam haddaad tahay, masaajidka iyo dadka ku tukanaya ammaanay kugu yihiin. marka ammaanada macnaheeda waa sidaas, inaad ilaalisaa lagaa rabaa, waana lagu weydiinaya maalinta qiyaamaha. waxaa dhacday qisadan boqoradii hore ka mid ah ayaa isagoo saaran sarta boqortooyada ayaa indhihiisu waxay qabteen ay ku dhaceen gabadh aada u qurux badan oo sarta banaankeeda meesha dariishadu ka fiirinaya. gabadhaasi aada u qurux badan waxay raad ku yeelatay qalbigiisii. waxaa ag taagnaa boqorka, la taliyihiisa. markaasaa wuxuu ka codsaday inuu soo ogaado gabadhaasi ishiisa qabatay inay xaas tahay iyo in kale. ninkii la taliyaha wuu baxay. muddo kadib warbixin uu keenay boqorkii. wuxuu u sheegay boqorkii in xaas ay tahay, uuna qabo khaadimka boqorka, in la yidhahdo fayruus. markaasi kadib boqorkii khaadimkiisa fayruus uu u yeeray. wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa shaqa inaad soo qabato. nacam mawlaayuu yidhi, waayuu yidhi, amarkaaga suuriya un fulinaya. wuxuu yidhi shaqadaad soo qabanaysid, waxaan kuu dhiibayaa warqad, waxaad u geynaysaa boqor aan saaxiiban ah, meel maalmo loo soconayo. waayahay mawlaayuu yidhi, warqad diyaaraan ah inaan qaado. warqaddii gacanta ka saaray. wuxuu yidhi warqaddaana say u xiran tahay ammaan ahaan u gee boqorka. waayuu yidhi beri waa baxayaa, shaqadan waa soo qabanaya. gurigu ku laabtay, wuu isdiyaarshay, habeenkii wuu seexday. warqaddii wuxuu geliyey barkintiisa hoosteed.
subaxdii markuu soo kacay ninkii qulaamka ahaa ama khaadimka ahaa alaabtiisu rartay fariskiisuu qaatay wuu baxay markuu baxay oo boqorkii uu hubsaday len ishaa lagu hayay bixitaankiisii in uu qulaamkii ama khaadimkiisii guriguu ka maqan yahay boqorkii markaasi wuu baxay gabadhii u tegay oo keligeeda ah gurigu ku garaacay guriga markuu garaacay waxay dhahday yaa albaabka taagan ilan odagayda waa ka tegey amaanada waa iyadi markaasaa wuxuu yidhi waa boqorkii hebel way naxday si deg degi ku furtay markaasi kadib boqorkii uu soo galay albaabkuu xiray gabadhi dhanka derbigay ku carartay marka boqorkii wuxuu gabadhii waxay tiri mawlaaye waad isoo boqotay maxaa jira wayna fahmi kartaa gabadhi boqorada waaweyn ka mid ah inuu yimaado guri khaadimkiisa oo guryaha hoose ah arrintaasi gabadha caaqilada way iska fahmi kartaa waxa meesha ku jira derbiga dhankiisay aaday isku riixday iyadoo xishood iyo cabsi ku jirta boqorkii meeshuu fadhiyey kabaha inuu iska bixiyuu meel fadhiistay oo gees ah ama isooyinka qaarkeeda sariirtuu fadhiistay markaasuu yidhi kaalay halkan dhinaciga soo fadhiiso gabadhii waxay tiri gabay cajiib badan ayay tirisay waxay dhahday tajanabat اlusuudu wuruuda maa'in kaana alkilaabu walaqna fiih af soomaali waxay tiri libaaxyada way diideen inay ka cabaan biyo uu ku dhareeray eeyaha hadalkaasi wuxuu ahaa hadal xigmad ku jirto oo hadal weyn ah oo boqorka ka xishoodsiisay hadduu boqor ah waayo macnaheedu hadalka sarbeeb waayo maad damcaysaa meel uu ku dhareeray ilan eeyaha waxaa la mid ah khaadimkaagi marka naxtin uu naxay ayuu cararay boqorkii kabihiina wuu hilmaamay waxaa dhacday ninkii khaadimkaa intuu waddada saarnaa wuu nastay kadib wuxuu soo boorsadii uu rabay inuu hubiyo in boqorkii warqaddiisa ay ku jirto wuxuu ogaaday in warqaddii uu ku hilmaamay barkantii wuxuu sameeyey wuu soo kala jiireeyey faraskiisii isagoo ku socdo xawli wuxuu ku soo laabtay iyadoo wakti habeen ah gurigii markuu ku soo laabtay albaabkii xoog ku soo galay gabadhii u sheegay warqaddii inuu hilmaamay uu ku hilmaamay barkintiisii laakiin indhihiisi waxay ku dhaceen kabihii boqor oo kaba caan ahaa isla markii maskaxdiisii 180 degrees bedeshay laakiin caradii wuu qarsaday warqaddii uu qaaday laakiin wuxuu fahmay sababta warqadda boqorka ugu dhiibay inaysan ahayn inuu fariin boqorka uu u farayo laakiin ay ahayd gabadhaasi quruxda badan oo ilaahay uu siiyey khaadimkaasi inuu boqorka uu u dabamaro aamin ma ahayn wiilkii khaadimkaa wuu baxay fayruus warqaddii boqorkii u geeyey boqorkii diigu gurigu ugu laabtay kabihii uu soo qaatay saan loo fahmay gabadhii way aragtay in ninkeedii uu kabihii arkay laakiin afkay xiratay wiilkii ghulaamkii fayruus wuxuu ka soo laabtay safarkii boqorkii u tegey wuxuu u sheegay shaqadii uu soo qabtay warqaddiina uu geeyey boqorkii marka wuxuu sameeyey maal fara badan oo boqolaal diinaar oo lacag aad u fara badan ahayd uu gacanta ka saaray
وحولي تنوى هدية ذا أهين هدية انت أصلا إن خادم لصيو هدو سوقة تحتاج هذا نوع أو كلاه لكن هدية النوع أنا كلا وحي كتر جميسي أفكاق حراء وحي كسوق على معناها ساسيحي قلقو كل أبطي حاسكي ساو حيري boqorkuu naga farxiyey lacag fara badan uuna soo siiyey marka waxaan rabaa inaan kaa farxiyo adiga iyo qoyskaaga suuqa aan ku geynayaa markaasoo suuqa waxay jeclayd haween ay jeclayd dhar iyo dahab iyo diamond inuu usoo gaday reerkeedana hadiyad usoo gaday uu kaxeeyey reerkeeda oo meel fog deganaa ayuu geeyey markay arkeen gabadheedii sida loogu soo labisay dahabka iyo dharka iyo hadiyadaha loo keena aada ugu farxeen markaasaa wuxuu yihi gabadhiina cabaarina la joogto marka caado waxaa ah meelahaasi iyo waqtiyadaasi gabadha 2 maalmood 3 maalmood reerka inay la joogto ninka uu soo doonto markaas uu ka haysto laakiin muddo bil ah mana ka wardoonin mana ku noqon isla markaasna fariin xitaa ama ha ahaato dad ama qoraal waxba uma farin uu ka goostay familkii way fahmeen inay wax jiraan gabadha walaalkeedii ayaa waxaa u yimid Fayruus ninkeedii gurigiisu ugu yimid wuxuu yidhi waxbaa jiree manuu sheegi kartaa inaad bil xaaskaaga ka maqnaato oo gabadhaasi quruxda badan oo gabdhaha ugu quruxda badan ah oo ilaahay subxaana wa tacaala kugu manaystay aada guursatay markaasaa wuxuu yidhi gabadhiina waa idin soo celiyey wax ka badanna waa idin soo celiyey aada ku faraxdaane maxaad iga rabtaa markaasaa wuxuu yidhi gabadha ma soo ceshanaysaa mise waa ku dacweynaya qaadigaan kugu dacweynaya wuxuu yidhi gabadhiina waa idin soo celiyey waxaad ii keenteen wax ka badan waa idin soo raaciyey gabadhiina waa idin soo celiyey wuxuuna ku dacweynaya markaas kadib qaadi alqudaat qaadiga ugu sareeya ayuu ku dacweeyey dacwadaasi boqorkii way gaartay la qaadayay boqorkii wuu fadhiyey si u dhegeysto dacwada waxaa yimid gabadhii walaalkeedii iyo Fayruus oo gulaamka boqorka ahaa iyo boqorka oo dhegeysanaya meesha fadhiya iyo qaadigii dacwadii wiilka boqorkii ee qaadiga ayaa furay wuxuu weydiiyey wiilkii dhalinyarada ahaa ama gabadha walaalkeedii wax uu Fayruus ku haysto ninkii dhalinyarada gabadha walaalkeedii sarbeeb uu isticmaalay wuxuu ninkaas u jeedo Fayruus waxaan u dhiibay beer amaan ahaan beertaasoo derbi ku wareegsan miraheeda u dhammaystiran oo wada geedo qurux badan leh oo geedaha miraheeda ay bislaadeen biyo macaan oo qabow ceel ahna ka qodan wuxuu yidhi wuxuu ii soo celiyey beertii oo derbiga uu jabsan yahay marka waxaan rabaa inaad weydiiso sababta ku kaliftay inuu beertaasi oo quruxda badan uu ii soo celiyo wuxuu yidhi qaadigii warka uu sheegayo siduu u sheegayo ma u jiraa markaasuu wuxuu yidhi Fayruus waa runtiis qaadiyow beeruu ii dhiibay oo bisil buuxda iyo ceel biyo macaan leh waxaa la sawirayaa gabadha quruxdeeda iyo baarinimadeeda iyo macaankeeda iyo edabteeda iyo akhlaaqdeeda beertaasoo derbi ku wareegsanaa waa runtiis laakiin mushkilaa dhacduu yidhi qaado ano safaraan aaday markaan ka soo laabtay beertan waxaan ku arkay raad libaaxaan ku arkuu dhahay oo weligii aan ku ark marka waxaan ka cabsaday in libaaxaasi uu nafteeda khatar geliyo saan u badbaado nafteeda u badbaadiyo iyo iyada nafteedaba waxaan go-aan ku gaaray beertaasoo dhan inaan iska celiyo oo nafteeda markaasi kadib
beertay ka fogaato oo aan badbaado. macnaha gabadhaasi quruxda badan oo boqolka dhalinyarada ah adiga iyo reerka iyo walaashaa maxaad damacsatay, maxaad rabtaa? wuxuu yidhi ninkii dhalinyarada ahaa, waxaan rabaa beertii ammaanada ahayd inuu ceshadaan rabnaa, uu haysto, maadaama uu yarin ammaanada ku fiican. markaasaa wuxuu yidhi qaadigii, beertii maadaama ammaanadii lagu dhiibay aad sidii la rabay aada u gudatay oo dadka beerta lahaana ay rabaan inaad haysato, beerta ma soo ceshan kartaa? markaasaa boqorka uu hadlay. boqorku wuxuu yidhi, libaax beertaada soo galay, mirahana wax kama cunin, biyaha ceelkana wax kama cabin, libaaxi wuu laabtay isagoon waxba samaynin. beertaadii soo cesho, libaax dambana ma soo geli doono, aamin ayaad noqon doontaa. kadib ayaa wuxuu yidhi ninkii gulaamka fayruus ee xaaska quruxda badan qabay, qaadiyow waa ogolaaday beerteeda oo soo ceshanaya. 5 faa'iidoo sheekada laga qaadanayo. 1. qofka hadduu mas-uul yahay oo awood ilaahay uu siiyo, in awooddiisa uusan u isticmaalin in ka baxsan xuduuddii ilaahay subxaana wa tacaala. hadduu wasiir yahay, hadduu prime minister uu yahay, hadduu madaxweyne yahay, hadduu guddoomiye gobol yahay, hadduu guddoomiye degmo uu yahay, nooc kastoo madax ah, ilaahay subxaana wa tacaala markuu ammaano kuu dhiibo oo awood uu ku siiyo, inaadan ka dhex bixin awooddaasi xuduudda ilaahay uu kuu sameeyey oo aadan ku xadgudbin. in ammaan lagaa helo, ammaanadii laguu dhibayna aadan ku xadgudbin, oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu kula xisaabtami doono aada ogaato, iyadoo aayadda aad ku fushurtay aada xusuusanaysid cid kastoo mas-uul ah. 2. haddaad xaas tahay iyo ninkaba, guriga waa kugu ammaano, gurigaas inaad ilaaliso oo xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala uu u sameeyey aan la soo dhaafin. gabar haddaad tahayna, xaas haddaad tahayna, ragga kale ka ilaali gogosha odaygaaga iyo gurigaaga, idin la-aantiisana qofna ha la hadlin. ninkana sidoo kale gogosha xaaskaaga iyo guriga xaaskaaga ka ilaali cid kale in ay wax ku yeelato, oo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabso. 3. haddii oo arrin xasaasi ah ay dhacdo oo raad ku yeelan karto bulshada ama dadka qaarkiis oo muhim ah, arrintaasi in sarbeeb lagu dhammeeyo si xikmadaysan ayaa ka wanaagsan in la cadcadeeyo oo fadeexa ay noqoto. diinta islaamka ilaahay magacyadiis waxaa ka mid ah sataar, kii asturo waay, asturkana wuu jecel yahay. lidaalika haddii naseexa la sameynayo, naseexada in loo sameeyo si khaas ah oo hoose, si loo xaliyo wixii dhib dhacay, taana waa laga qaadanaya meesha. waa sida uu fayruus uu sameeye waaye, iyo walaalkii, gabadha walaalkeedii, iyo boqorkiiba uu qaatay asagana waanadiisa iyo khaladkiisa. waxaa kaloo laga qaadanaya sheekada oo muhiim ah, gabadha mu'minadda ah oo alla ka cabsiga ku jira oo xishoodka badan, sifooyinkeeda inay ka mid tahay ninkeeda oo ka maqan
inay ilaalinayso gurigiisa maalkiisa oo aysan isdhiibeynin xitaa haddii laga yaabo inay heli doonto waxa ugu qiimaha badan adduunka. waa boqorkii oo dhan oo kuu yimid oo ku damacay, ninkaagoo maqan, qofka aan iimaan lahayn, gabadh aan iimaanka lahayn oo boqorka qancinayso oo rabta nolol ka qurux badan ama boqorkaba inuu isticmaalo, way isu dhiibi laakiin way diiday. ugu dambeynta waxaa laga faa'iidaysanayaa 5 qofka mas-uulka ah in uu yaqaano xuduuda loo sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala uu sameeyey iyo waajibaadka ilaahay uu saaray. waajibaadkaasoo ah in dadku uu mas-uulka ka yahay xaqooda inuu ilaaliyo, hadday yihiin dad liita iyo hadday yihiin dad awood badan. boqorka wuxuu ku xadgudbay masaakiinta xuquuqdooda. gabar maskiin ah haba qurux badnaato iyo gulaam isagoo u shaqaynayay oo khaadimkiisa ah oo maskiin ah. ilaahay subxaana wa tacaala marka ma ogola mas-uuliyad hadduu kuu dhiibo in dadka masaakiinta ah duruuftooda khaaska ah oo maskiinnimada ah inaad ka faa'iidaysato. halkaas waxaa laga qaadanayaa darsi ah in haddaad madax noqoto, maadaama dadka kale duruufo ay yihiin, duruufaha khaaska ah inaad ugu faa'iidaysan danahaaga khaaska ah. waxyaalaha dhaco waayo maalmahan oo wadamo badan ay ka dhacaan. dadka duruufaha khaaska leh inaan loogu faa'iidaysan duruufahooda khaaska ah, dana khaas ah, waxay doonta ha ahaato. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. sheekada iyo duruusta laga qaadan karo faafi, ajir iyo thawaab ayaad ka helaysaa. waxayna sharax u tahay aayadda ah aan kusoo gabagabeynayaa acuudu billahi min ashayطaani الrajiim inaa caradna alamaanata cala الsamaawaati wاlأrض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.